waxaa soo dhaweyntii abid ugu ballaarneyd ee murashax lagu soo dhaweeyo maanta lagu soo dhaweeyay murashax siyaasi Maxamed Abiib Yuusuf oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada degmooyinka Baki, Oolbaki iyo Ruqi. waxaana soo dhaweyntan ballaaran musharaxa u sameeyay qaar ka mid ah taageerayaasha tirada badan ee uu musharaxu ku leeyahay deegaanadaasi. waxaana soo dhaweyntani musharaxa ku wehelinayay musharaxa golaha deegaanka ee degmada Baki Cumar Maxamed. musharaxiintani ayaa waxay xafiisyo ka furteen degmooyinka Baki iyo Ruqi, halkaasi oo ayna kala hadleen qaar ka mid ah taageerayaashooda tirada badan ee ku sugan degmooyinkaasi. aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida fiican ee noo soo dhaweyseen noogu soo baxdeen. markii Soomaaliland gooni isku taagtay baa degmadeena Baki la dhacay oo boorama laga dhigay waynu soo ceshanaynaayoo taasaan markii horeysaan isku taagaya inaynu caasimadii Baki ku soo celino gobolka. sidaadii jeceshiin baan idin jecelahay, sidaadii rabtaan baan idin rabaa. maalmaha kooban ee inoo hadhay waxaan rabaa inaad inoo shaqaysaan oo codka ku hubsataan. anna 5 sannadood aan idin shaqeeyo, waan ogahay tacabkiina iyo waxaad dhulka geliseen iyo dhibaatooyinkii idin helay ee ay idin geysteen daadadkii iyo masiibadii halka ka dhacday barigii Dhaweytoole inaan waxba leeydi ka tarin. waan ogahay waxa taa keenay maalin walba degmada waxa laga dhisaa dad meel kale ka soo shaqo tagay. maanta dadkeegii baa maraya. waxaan doonayaa inaad codkiina ay siisaan idinkoo midaysan, idinkoo isku dhayna codkiina ay siisaan si aan dantiina uga doono Hargeysa, because danta Hargeysa taala la iskuma soo gartay waa la soo xoogaa. maanta waxaan taaganayn soo dhaweynaynaa waa musharax hadaad ayarle Maxamed Abiib Yuusuf Cumar Maxamed Cabdi oo isna golaha deegaanka Baki ah. bulshada reer Bakina way mahadsantahay, waxay ciidda u taagan tahay ee soo dhaweynaysaa waa iyaga. inamadiinii baan idin wadnaa, waa inamadii deegaanka, qof meel kale laga soo kaxeeyay ma aha. waxa weeyaan waa golaha wakiilada oo Maxamed Abiiba. waxa weeyaan waxa laga yaabaa inuu bari toole idin anfaco. halkani meelan daacadu daba joogtana maaha, meelan aan la naga garan laayay maaha. waa halkaan ku dhalanay, waa halkaan ku dhaqanay, waa halkii ka awoowda aan joognay. gobolka awdal gebigiisa waan codkan ka doonaa, codkan ka doonaa waa maxay? waa cod baarlamaan. degmada Baki gebigeena cod baan ka doonaa, anagoo si jarnaa daba ka doonaa oo degmada cod ku ciiday ilaahay baa la siinay. intaasi kadibna musharaxa ayaa waxa soo dhaweyn ballaaran oo horey loo arag loogu sameeyay deegaanka Ruqi ee ka tirsan degmada Baki ee gobolka Awdal, halkaasi oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo musharaxu. Soomaalidu waxay tiraahdaa ninna inta uu ku jira kuma soo dhaaf. waxa weeye Maxamed muxuu ahaayeen Abiib oo ah golaha wakiilada ma ahayn lama soo tira laguma soo xuline, waxa lagu tayaa lagu soo xulin. waa nin muxuu ahaa codkiisa iyo raganimadiisa iyo dadnimadiisa intaba wax kula soo bixi kara, waxna soo goyn kara way. intaasoo dhan siyaasadda ku soo jiray, intaasoo magaca Ruqi xambaarsanaa, intaasoo dhan halkeenu siday Soomaha. waa hal yaroo kaaroo nacasayna ku soo saarno xiniyeena soo diyaar ma nihin. magaceena in matala soo diyaar ma nihin. dhalinyaranimada ku daafila soo diyaar ma nihin. ilaahay nagu karaamay, ilaahay nagu karaamay. Maxamed Abiibna nin wax loo sheegay maaha, nin wax loo sheegay maaha. halka uu tagayo nin wax looga sheegay maaha. doonina hadalkiisina codkiisa ku xoojina doonina. ma qaadatay walaalayaal xildhibaanka kale waa nin reer Ruqiya. waan ku faraxsanahay 10 sano maan iman Ruqi, halkii aan ku barbaaray, halkii aan ka soo jeeday giir loo aadiyo girid muxooya midna maxraba la yidhi. anigu hanka sare Ruqi baan kala tagay. aad baad u mahadsantihiin. Ruqi waa xarunta mujaahidiinta, waa xarunta wax iska caabinta. ilaahay baa mahad iska leh. dadka ugu wanaagsan baad tihiin, dadka ugu sharaf badan baad tihiin. waayo wanaag iyo sharafta wax lagu qiimeeyaa maaha ninka magaalada fooqyada dhaadheer la jooga, waa ninka wax la soo baxa. dhammaantiin waxaad tihiin dad wax la soo baxa. waayo waddanka oon hal geed laga beerin, waddankoon tamaandho laga soo saarin. Ruqi anoo intaa leegoo yar ka leeg ayaan garanayaa magacay khudradileeda oo dhan in Ruqi laga soo saaray. dadkaasaa sharaf leh. Ruqi codkeega meelo fog baa laga soo doonanayay, dadaan deegaankan u dhalan ayaa soo doonanayay. maanta laakiin anoo inankiiniya baa jooga, anoo adeer ii wada tihiin baa jooga.
waan ku dagaalami doonaa in magaciinu u qarxo maxamed abiib Soomaaliland waxaan u sheegayaa halkuu ka soo jeeday halkuu haddaan xiniin wato halkaan kala yimiday haddaan raganimo wato halkaan kala yimiday haddaan dadaal wato halkaan kala yimiday waa halkaan maanta joogo waa ruqi waa reerayaygay waa reer adeerkay waa dadkaygii waa walaalahay weeyey waa tolkay insha allahu tacaala waxaan ku riyoonayaa oon ilaahay ka rajaynayaa in jidkaasi u furmo oo u laamin noqdo oo halkanay ka soo baxaan dadka intay ugu taajirsani way joogaanoo rag xigtaa jooga laakiin qoys kasta ha isqorsheeyo wuxuu maxamed abiib oo reer ruqiyo inankii ruqiyo u siinayo intay hooyii aabbadu wada tashadaan isa soo qorsheeyo waxaad tirahdaan qof haddaad garato laba haddaad garato maxamed abiib baa intaas kale inta kale la tolkaale sow sidaa maaha